Duqa magaalada Kyiv ayaa soo rogay bandow magaalada oo dhan ah oo socon doona ilaa subaxnimada Isniinta, kadib markii uu dagaalku soo gaaray waddooyinka caasimadda. Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ayaa u dhaqaaqay inay hub siiyaan Kyiv maadaama ay wajahayaan duulaanka Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada waddanku ay iska caabiyeen oo ay si guul leh uga hortageen weerarada cadowga. Ku dhawaad 200 oo qof ayaa ilaa hadda la dilay oo ay ku jiraan dad rayid ah, oo 3 ka mid ah ay carruur ahaayeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Ukraine. In ka badan 150,000 oo qof oo reer Ukraine ah ayaa ka qaxay dalka tan iyo weerarkii Moscow. Qaramada Midoobay ayaa sidaas sheegtay. Wadamada reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay cunaqabatayn ballaaran oo lagu soo rogayo Moscow, oo ay ku jiraan tallaabooyin lagu beegsanayo madaxweyne Vladimir Putin laf ahaantiisa. Midowga Yurub ayaa fududeyn doona gaarsiinta gargaarka militari ee Ukraine, sidaas waxaa Twitter-ka ku sheegay madaxa Golaha Midowga Yurub Carles Michael. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa ku dhawaaqay in wasiirada arrimaha dibadda ee Midowga Yurub ay isugu imanayaan kulan toos ah maalinimada Axadda si ay u qaataan tallaabooyin dheeri ah oo lagu taageerayo Ukraine iyo duulaanka dhanka ah gardarrada Ruushka. Waxaa soo jeedin doona xirmo gargaar degdeg ah ciidamada qalabka sida ee Ukraine si ay u taageeraan dagaalka geesinimada ah, ayuu ku yiri Twitter-ka, isaga oo ku daraya in kulanku bilaabmi doono maalinimada Axadda abbaara 8 aroornimo.